qiso ka dhacday meelaan joogno waxaa jiray nin oo ilaahay xoolo iska siiyey wuu deganaa xaaskiisa 5 caruur ay lahaayeen marka ninkan xoogo ilaahay xoolo uu siiyey wuxuu imaan jiray sanad walba Afrika uu imaan jiray dawladda marka magaceeda inaan sheego qaardan baan sheega marka laba reason uu imaan jiray business uu lahaa familkiisana way joogeen meeshay joogeen marka uu soo noqonay ilmihii marka dambe wuxuu go'aansaday maadaama markaas uu joogay 2 bilood joogay inuu gabarka guursado meeshu yimaado mar walba markuu guursaday kadib gabadhii ayagunba isburburinay ayagunba guriyahooda iska burburiyay gabadha meesha joog mid kamid ah gabadhii xagga wacday waxay tiri oo ma ogtahay ninkaaga inuu guursaday ma dhici karto ma ninkaaga uu guursaday waa kaas ninkii miskiinka iska noqday xagga tagay buuqa lagu furo waxa soo guursad soo maaha ani aad isma naqaano madaxigiisii ninkii markuu si kasto gabadhiisa rabay xaaskiisa rabay inuu u raali geliyo waa diiday wuxuu ku yir gurigan ku dhisa dag masertir waa diiday wuxuu yiri dahaban ku gadaa way diiday baabuur cusub ku gadaa way diiday xajan ku geena way diiday dan culimadii masaajidka u bandhigay culimadii la hadashay marka gabadhu waxay soo istaagtay maya aniga oo heel gabadhii la guursada laga ma yaabo okay ninkii markii la kari waay gabadhii la kari waay jaanis ku dambeysay marka wuxuu noqday anuu soo wacay wuxuu sheekhu gabadhan muxaadaruunkaaga way dhageysataa qisasta ka sheekaysa jimcada iyo ducooyinka way dhageysataa waxaan rabaa inaan la hadashid gabadhan arintaas aa jirto gabadhii marka qisada dhan uu iga sheekay waa la hadlay walaalay waxaan dhahay gabadhaas xaqi culays ku hays maxaa hal waxaan rabaa aqli ahaan inaan kula hadlaan dhahay waa u banaantahay ima banaana geesans ka dhigno gabadhaas hadda xagga joogto culayskay kugu hayso maxay tahay gabadhii marka waxay bilaad inay wax ka sheegto waxaan dambi ha gelin gabadhaas horta waxay kugu sameeysaa yaraatan ma jirto dhibka jira waxa gabadhaha markii naa kale la guursado naagti kale caynaysa naagtaas dambi ma lahan ida xor qofsa adiga xor u tahay idan xor u tahay ninkaaga waaya haduu qof galay ninkaaga galay laakiin gabadhaas kale waxa isku leeyahay ma jirto hatta kuma banaan inaad tira fur diinta diiday hatta inaad tira naagtaas fur ama aniga fur wala diiday hatta adiga taada kada la gabadhaas miskiinta kama hadli kartid almin gabadhi ma waxaan walaalo wada hadlona gabadhaas iska daa dambina ha gelin adan ku diga almin marka la hadlay oo arko waxaan walaalo waaniyay u sheegay waxaan culays ku uma hayso ninka sanad walba soo bixi jira 2 bilood ها labadii bulood baxay intuu meel kaliis joogi lahaa qofku ilaaliso ma rabtay daninkaaga jeceshid intuu kaliis dharkiisa dhaqan lahaa oo maqayan ku cuntay lahaa qof uu ku dago oo takeer gareyso uma baahan almuhim gabadhi si kasta oo la hadlay waa soo istaagtay markii dambe waxaan dhahay wallahi waxaan dhahay khibradeedu waxay tusaysaa in ku dhahay hadii amaanta ku madaxadkaatid inaa ka shalaynaysid aan kugu dhaaranahay qayb kama ogi laakiin wallahi waad ka shalayn doontaa waxay ugu jirtaa waa mahadsantahay sheekh okay waa mahadsantahay markii la kiiska laga xiray albaabka laga xiray ninkan la hadla markii waxaan dhahay wax ka khayr badan Allah kugu bedelo bis waa arinta aan iga dhamaatay gabadhii sidii lagu furay gabar xoogo isku qurxanay ahayd ciidada markii ka baxday ninka la ku qabtay ninka markii uu guursaday nin Soomaali ma ah ninka dambo ninkii oo 2 bilood markii isqabeen maalin wuxuu ku yiri waxaan rabaa inaa dadan cazuuma ah qada sameeysid gabadh waayay tiri qaday sameysay gabadha Soomaali ma sha Allah qada waxay kariyaan macaan bariis cafaayo hilib alaabay karis guriga ninkii iyo martidiisa qolkay galeen waa la qadeeyay waa la baxay markii la baxay gabadhii xaaskiisu u yiri heblo ay kaale waxaan rabaa inaan ku baro walaasha gabadhii markii walaasha waa fahmi weyso waxay tiri adiga walaasha mise walaashay markaas yiri walaasha okay si walaasha ibn walaasha muslimada هذا ولا شيء هذا أنا ولا شيء ولا شيء وايس محاكاة وده وفهم ويس مرحوي جبدان وناكتن كله جورس دي ما أنت واي جوريان كل شيء جريني سا جبدي عنده هني تحت وحيتر ناكت إلى أروست قضية أنا ما سميه هذا نينك وحواس لسحسينه محاكاة قلدن حرامي أنا جورس ده إلى سوي مبنينه حتى هاي لا وكوب بني لكن مش بهذه الطريقة أنا عنتذا كو كري أو guriga ku aroostay gabadhii marka waa qaadays wax kale oo si dare ka sii dar marka wuxuu yiri maqal hal qol iyo 1% deganaa Soomaanaha maadaama hal qol 1% iidan caaw aroos tahay qolkaaga soo hagaaji sariirtii si fiican soo hagaaji si fiican soo firaash aniga gabadhan kale oo is aroosnay hadda galayno adigna barsada seexanaysa gabadhii waxay ku noqotay arrin kale oo culus mid saddexaad oo ugu dar wuxuu isbuuca oo ku aqalka oo maxaa lahaa toddobaad maalmoodna adiga cuntada karinaysid ee ku talagal gabadhin ay tahay markaas do you have problem with that arrintaas dhamay kugu haysaa
waxay tiri maya gabadhii marka way qaadan weysay waxay ii sheegtay marka habeenkii markii waxay tiri inta mar aan tamaniyay in albaabka ku garaaco asinaatiisa ku jiraan xisaab ma laha markaas waxaan u maxaa u sameyn weysay waxay tiri waa cabsad way ka cabsatay ninka علشان nin Soomaali ma waa ka cabsatay waxa dhacday marka gabadhii waa qof markii culays badan la saaro uu san filaneen uu xanuunsana pressure ku dhacay gabadhii dehydration ku dhacay isbitaalka la geeyay faleeba lagu diray xataa dhakhtarka markii dambe warayso wuxuu ku dhibaato ma ku hayso abuse ma lagu sameeyay yani jirana kuma hayso korkaagan waa si buuxo korkaa waa qalaleen what's going on marka wuxuu meesha sheegay ama okay dhibaato yar ay haysto family problem ay haysto okay gabadha hooyadeeda wactay hooyadeed markii wactay kadib waxay ku dhahday arintii uu sheegtay hooyadii aabihii uu sheegtay waxay tiri waxaan rabaa ninkan inaan ka furto gabadha wuxuu lagama yaabo arintaasna aniga galo ninkii hore igu ceebaysay mar raba inaan galo almuhim waa taqaanaa naagta ninkeeda wax rabtay inay ka dhamayso si fiican ay ga dhamaysanay xaaji waa lagu celceliyay ilaa marka dambe uu aqbalay waxaa dhacday marka culumadii uu tagay culumadii waxay la kulmeen marka ninkii oo gabadha qabay la kulmeen arintii u sharxeen ninkii waa xanaagiibo marka uu intiina culum waxa uu maateen aniga naagtiga furtaamiya maya ummi manina ka furnay waxa rabnaa wax hal inaan keeno ninkii culumada qaar kamid meesha jooga wallahi shay ninkii inuu istaagay xabadsan u taagay wuxuu anaga baqnay waxaan may waa fiicanta nin fiican tahay waa si baxan ma salaama anaga guriga iska jooga hayso guriga waa baxna anaga waana lan kugu nimid meesha waan fiici weysay ninka waa iska bixi culimadu waxay anaga ma awood inaan sameeyo gabadha walaalkeeda marka culimada kamid aha gabadh walaashiisa ihaanadani waxa uu dul qaadan waayay walaashiisa meesha iska joogtay waa mahadlayso bidadan waa qof xanuunsan yani shaaga ku dhacay dhibaatada gaartay qof ibn aadan uu gaar qaran ku dhintaana balaga yaabay lahayd hadacdi marka walaalkeeda ninka kuna wuxuu maqal niyo walaashii ku marabta fur hadaa furi weysin wuxuu maxkamadan ku geeyna ano muslima maxkamigeen wuxuu muslimada aday ku taala gabadhan walaashii ku marabta Soomahan fur billati hi ahsan ma Soomahan wa bayna wa baynaka al mahakim ma rabta miyaha anna ma barabibo hay fur ma furo lacag ay ka baxdo yani maxuu fura there is nothing free lacag ay ka baxdaanay lacag ka baxda aroosti waa maxay gal aroos ii mi rabta lacagteedan rabaa hay way lacagtaas soo sheego dhammar uu soo xisaabtay wuxuu sariirta asigu ku jiifaya hadda inaagtiisa kala ku jiifay sariirtii uu soo xisaabtay wuxuu soo xisaabtay 3000 iyo xoogo jajab ku soo dhigtay wuxuu ku daray wuxuu ii sheegay waxyaalahan la yaabay sariirta haba xisaabta door rabe waxaan la yaabay waxa uu daray maalintii sariirta la soo gaday waxa lagu soo qaaday baabuurka oo naagtiisa wala ninkan oo sheekh walaashiisa lagu soo qaaday gaas uu ku shubay xataa waa xisaabay wuxuu maalintaas gaaskaasaan ku shubay intaas oo ku daray bidetail wuxuu waxaan la yaabay ma warqadu ku qori jiray ma bangigu ku soo printer garay waa yani suu u qoray wax walbo markaas oo xisaab markaas uu waxa kala jirto yiri anigana waxa igaaro damage morally dhiba igaaro dha walaas aan filanayna igu dhacay marka taas marka isiisan kadib waxaan u baahanahay ani nafsiyan hataa waa dhiba igaaro waa ina qol aqli u siidana tarkeeda hadda wuxuu dhibiga naak marka furto xooga waa taqaana dhiba ku gaaraayo marka wuxuu yiri waxa 3000 xoogo soo walaalkii 5000 u keenay wuxuu yiri 3000 xoogo soo 1500 waxa sheegayso u qaado walaashin hadda meesha khuluc furita xataa ka marado wala ya khalcina xoolaha qaado makhluucaat gabadhi walaashin ku qalay gabadhi sidii marka ay xuriyadeeda ku soo qaadatay gabadhi markay xuriyadeeda soo qaadatay way nasatay adiga maalmo bil markay joogtay amal waxay la xiriirtay marka ninkii hore ay kala tagayeen la xiriirtay waxay ku tiri marka waxaan rabaa inaan caruurtu arko ولي لكن تاريخ أهان أنت أنقل مواضيع أنقل نينكاس نينك في عن أو كابن آدم سن أو كأخلاق في عن ولي ما أركب رنتي نمن في عنا ويجران قبل في عنا ويجران نمن حنا ويجران قبل حنا ويجران لكن نين كانوا كل رنتي ما أركب تلفونه بس كنا غني ولي فيس تو فيس وما نعرف أيهم بيسوعه وهذا عند مركنينكي ويسوع الحكوي وحكوا ترجع عروتي وحكوا المقل عروتان شنتي أدي على شيء مر الله على مركارة تعرف أنا أتي ما إيسو شيك وكفرين قرية حدارت أنا لدكتني أوجو أن ستني إيسو شيك أنا أقول لك الإجارة نايو قولي واقع بحادي عروت هذا الجوجا كيف بدي مركو روحي قبل المركو واسوس زيارنا استب واسوس زيارنا ما حدا حقوق مركي جو حيت والد وحار بين حقوق ولد وايه مالي مال ما كمل إيه مركا ويرتو حيت ركالي أنا كل هاد العرباء
ووقتي عروتي جوجي لهاين عروتي مركب waxay u geysay guriga hooyadeeda geysay caruurtii waxay rabtaa ninka eedii kaliya inay isla hadlaan ay rabtaa waqtiga caruurtu ku weelan dugsina ma jiro iskuul ma jiro laakiin iyadana siyaas kale saas caruurtu waa ka xayso hooyadeeda u geysay ninka markuu soo galay caruurtii inuu joogo u maleeyna la naagtiis ma خلاص way mahram ma ahan albaabkii xirtay casiir biyo u keentay marka waxay tiri aaw caruurta ma jooga inuu istaago waxay tiri ma yahay istaagana kula hadlaan rabaa raatini waa ka qaldamay dambi badan waa ka galay وانا kugu xadgudbay waana dareemay dulmigan ka galay ee waxaan rabaa inaan isku noqono maxay kula tahay ninkii wuxuu ku yiri marka inaan isku noqono waa hatta yeeli jamal fi samil khiyat inaan kugu noqdo Soomaanaha markaas iidan ma aqoonin quraanka carabiga ma taqaan waxay maxaa macnihiisu wuxuu yiri cibada ma taqaanay ha duleelyar Soomaalaha geel meesha ma la gali kara markaas ay tirmaya taas oo kale way u dhax gabadhi waa xaawish abadan waa ninka wuxuu yiri laga ma yaabo waa wuba ku dhaartayba hadda adiga ka soo hirtana uu yiri kuma rabo ilmahaaga ma rabtaay hooyadooda tahay kaama hor istaagay laakiin shakhsiyan Soomaaniga ha niideeda waa ka dhacday mana ku baahni gabadhi marka waa xaawishi anay soo wacday marka dad badan arrimooda ila soo wadaago marka dad qisooyin waxa jirta aan hilmaamin dadka haduu kelmo yar iiga sheego qof markuu codkiisana hilmaam wala laakiin markuu qisada wax yar ii sheego horiyaan ka xasuusan laan qisooyin aad u xanuun badan waa ويسوى عليه هاي تري شيخ أحمد وهبلو أوكي أرنتي نيكي يا ربنا كلا هذلو مركو حانه وحي شيخ عصبة هاني وشيخ مركز ما حسوس تجبر هذا كهر أو نينك سبب سنجرينو دي ها مركو حانه أنا هل مالي يدك تو حانه جبدي عنده ميا واش الله يدون تاعده يسميها أنا كده ميا مركز يترى ها والله وكرسي مالنتي فدي إلى هاد ليس ديس واش الله يدون تا والله أنا حدنا فدي أيتين والله وانا شلاي اوكي هذا ما حي سوعتي marka maxaarta inaan ku qabto waxaan rabaa inay qabatin ninka rabaa inaan la hadashid oo la hadashid adiga ma xawla hadli weysay waxay tiri aniga xoogo si waxay meeshay waxaan adiga la hadal waxay tiri waa la hadlay اوكي wixii idin dhaxmar runtii ii sheegan ani markaan dagaal galay waxaan rabaa inaan ku galo wax rasmi aan og laakiin marka wixii sheegtid oon tago oo opposite kan la soo kulmo may rabay waxay tiri ma runtaan ku sheegaa ninkan saanu ku dhahay waa ii ogolaaday ana reey markii dambe isku noqdo hatta iyada ay sheegtay albaab caruurta hooyadoodina uu geeyay hooyadiina uu geeyay saana sameeyna isku noqonaa rabnay laakiin wuxuu ugu yiri tiri quraanka meesha uu sheegay kelmadaas uu ugu dhahay hatta yiri jamal fi samil khiyat okay marka waxaan dhahay ninka run ahaantii xaq uu leeyahay aan dhahay inta samar lagu soo mar laakiin I will try adii nasiibka waa la hadla ninkii aan soo wacay way qabtay marka waxaan ku raniyo waa ku baahnaa inaan kula hadlo waqti ma haysay waa la hadlay marka wuxuu sheekh Axmed oo khayr Allah ku siiyay arintaas wuxuu yiri waa arin dhimatay ka soo qaado u dhahay mar raba inaan ku noqdo gabadhaas gabadhiina igama herin asigina hadal fiican ima siinin marka dambe waxaan ku dhahay maqal muhaawado ugu dambaysan sameeynayna waxaan ka rabaa maadaam qaladka qofka galay aad tahay oo ictiraafsan tahay cudur daar soo qor warqad cudur daar qof uu qaldami karaa ceeb ma ahan laakiin qaladkaaga ina qaldantay oo haddana diyaar u tahay inaad ka baxdid soo qor gabadhi marka way u tiri maalmay maqneed waxay soo qortay warqad hawmareyna gabadhaas waxay ku takhasus qor essay markii la qoray waa taqaanaan waxa la sameeyay muqaddima la sameeyay la qoray body la qoray 3 paragraph 5 paragraph kadib conclusion loo sameeyay exactly sidoo kale u soo qortay warqadda marka waxay sameysay aniga text message ku soo dirtay aniga iyo asiga hal group noo soo sameysay magacii ma save gareysno waa fiir warqad markaan fiiriyay waxa arkay naagtaan ninkeeda amaanayso waxaan ma sha Allah naagtaan ninkeeda san amaanayso naag caadi ma ahanba soo aqrinay markii dambe waxaan arkay waa fiiri waxa ku qoran ninkii malaa'igay ka dhigtay say u amaantay waxay tir saana tahay oo saana ahayd markii amaantiis ka baxday waxay ku xijisay marka paragraph ku xijisay waxa way ida iska hadashay anigana waxay tiri waa ka qaldamay intii qaladaadkeeda dhan ay qortay dulmigan ka galay waa kugu xadgudbay tan saddexaad paragraph saddexaad waxay qortay marka hadda waxay diyaar u tahay wax kastaan sameeyay qaladan sameeyay waa qaladkayga waa qaatay wallahi diyaaran waana ka shalay run ahaanti ma ahanay tiri waa caruurteedii waxaan jecel caruurteedina aabaheedu oo isku hayaan jecelahay kilmar marka hallayna kaligiis ee bold ka dhigtay wuxuu ku soo qortay marka noqoshadan kugu soo noqonaya caruurtaada waa part laakiin aniga ku jecel oo ku rabo caruurta waa rabaa inaan isla haysano laakiin anigana uma maleynay nin adiga ka fiican inaan heli doono mana rajeynay mana u maleynay inuu joogo sida darteed waxaan ka codsanaa
ina igu noqotid waxay tiri marka dambina waa la galay waana laga toobad keenaa ilaahaygiiba dadku wuu cafiya waxaan ka rajaynayaa inay cafisid runtii warqadii markaan arkay waa atharat fiini waa fogo waa si fiican ii ta'tiirisay waxaan go'aansaday marka ninkii warqada wuu gaaray waa arki karaa inuu arkay lana hal gurigaan ku jiro anigu arkasin uu arkay kamuusa soo jawaabay warkadan waxaan go'aansaday marka in aniga u tago baabuurkaygaan qaatay ilaa meel dhowr saac loo socdo waa meeshaan ugu tagay waa wacay marka salaamu calaykum hebel calaykum salaam haa sheekh axmed marka waxaa inaan ku arkaan rabay haa oo waa ogahay telefoonka maya inaan ku arko soo magaaladaas ma deganeed haa oo may waxaan aniga imaaday magaaladaadan joogay magaalada joogtay haa inaan ku arkan waa rabaa okay maqaayadaas hebel aan sugu nimaadno kafeegaan sugu tagna maqaayadii waa la fariis waxaana maqal oo ku soo gaabina cala albalaata seedahan carabta من غير مقدمات نيو أنا مقالة دقنا واتقنا سوا معنا كولومبوس وهاي دقنا أنت ساعود حوسو درايف جري for one reason هذه جناك هذا حاسي هره هبلو إن أكون نقطنا كشقة نينكي وإستاجي ولا لو ناس مركوحنا مقال هذه يكون طالع أنا كلمة دم بريشر دم مجرى أنت سميك رواجمي والله بالله وحن أصابح أنت سمرك سويري وقام سحور سؤالا كويدين إلهن كود داري سفر كان وحن أصاب شيء إن أنا جاي حاجة بس مسكين عيلي ست markaasna wallahi wax kale ma intaas leewaay markaas wuxuu igu yiri wallahi marna kuma tala jirin gabadhaas inaan ku noqdo laakiin safarkaas soo gashay runtii wuxuu yiri inaan ku celiyo aadigu adag tahay wuxuu yiri waa haye gabadhiyo waanu meesha la joogo wiligiis muusan wacin gabadha way qabatay markaas tiri haye salaam calaykum markaas wuxuu yiri sheekh axmed ila joogo arrintiina waxaan rabaa inaan isku noqonaan rabnaa yiri waa khalaas wuxuu yiri waxaan go'aansanaa isku noqono gabadhi marka wuxuu ku tiri ma hubta adiga hebel miya markaas uu sheekh axmed ila joogo oo magaalada safarka soo galay oo yimid inaan isku noqonaan rabnaa shardi yaa jira laakiin inuu sheekh axmed qof kale mehrinayna marka waxaan dhahay hadda intaas dhowr saacadood soo socday hadda dhowr saac kala soconaa waqtiga kale magaalada imada mashquulna waa ahay marka wuxuu yiri wax dhib ma lahan gabadhi arrintaas uu sheegay waxay tiri hadda aabahay halala hadla haddana hala nikaax waxba loo dahdaha wixii aroos ana sameysana laakiin axmed hadda baxay hadda hala sameey okay marka aabahay aan waani arrintan u sheegay aabahay familku waa rumaysan way asigana ninkii ma gabadhu ku noqonaha ma hubtahay waa hubay sheekh axmed oo khayr allah ku siinayo waxaabata khadar inay soo dariyaatay haddaa isku celinaysidba marka waxaan dhahay waxaan ilaaha gacanta ku hayo sidii ayaa marka ninkii iyo gabadhii nikaax ugu soo sameeyey alxamdulilah sidii ayaa hadda ay ku noqdeen reer ku noqdeen ay ku joogaan alxamdulilah gabadhiina waa dareentay siniin kadib ayaa ninkii ismaqalnay wuxuu yiri alxamdulilah wuxuu yiri wallaahi been kuuma sheegayay noloshan hadda ku noolahay weligii kuma noolaan u dhax xataa isbuucii arooska iyo haddaan ka fiicannahay oo nolosha ku noolahay lana khibra qof walba wuxuu arkay marka xanuunkii dhibku soo taabtay marka qisadan oo kale waa qiso dhacday waaye iyadoo kale waxa laga yaabaa inay dhacdo waa laga yaabaa iyadoo badan inay dhacdo waa laga yaabaa qisooyinka marka ku saabsan arrimahan faa'iidooyin cibro badan laga qaataa hadda مثلا qisada wax loo sheego cibra laga qaataa qisooyinka faa'iidooyinka ka qaadayna waxa kamid ah marka haddii aad masiirto gabar lama dhihi karo ma masiiri kartid ninna lama dhihi karo naa kale ma guursanaayo maseerkaaga laakiin inaad kontrolshid wax muhiim waaye waxaa ka sii muhiimsan gabadhaas kale lagula guursaday inaadan mar aadan ku xadgudbin laba option adiga haysateed tay ku fiican oo ku sheegay laba option adiga haysateed inaad ku joogtid inaad ku baxdada ku haysateed laakiin gabadhaas inaad ku xadgudubtid ama waxaad ka sheegtid ama aad tiraahdo ninka fur dambi waay ma ku banaano adiga maxaa ku fiican inaad gurigaaga haysatid ninkaaga haysatid gabar gadaashada soo gashay haddaad aaga baxdid gurigaaga waa طبعا aqli yara waay adiga hoos u soo dhigtay waxa cadeysay meesha marka ina gabadhaas aad la tartami karin ay ka cilmi badan tahay ka qurxan tahay oo ninka aadan la haysan karin marka meesha soo saartay miiska soo saartay waxa loo baahay marka gabadha inay ku fikirto waxaan wax adduunyo waay waa dhacday Soomaaliya ninkii khalaas ninkii isaan ku haysan kara caruura meesha joogteen ku haysan kara arrimahaas laga fikiraa loo baahan yahay maseerka طبعا ولا كنترولي كراي ودد مسير بدن way jiraan عائشة رضي الله عنها waa masiiri jirtay waa ogtay markii joori soo galeysay markii aragtay nabigu galeysay markaas wuxuu inuu guursanayo markaas markii soo gasho wajigeedan ka dareemay karin
ومسير لما ديري كر ومسير وجري لكن وحلو بهاي هي إن عقلك الاستعمال وحاجر عقلك إيه قلبك وسي وشقيان لكن عاطفة وحيرته وحول بإنها هشيد وحول بأركن الدنيا كم هي ليس عقلك لكن وحو كتسا أرنتان هذا كل دقائق واربا وإلى في عند الله كدام كل دقائق محاك الدنبيو عقوباتك أما دبعتك الدنبيني سمحيتها هذا مرة بين نقول لكم أوكي واضح سؤال شيء سويديني سيد أوكي نين كان ما أنت هدان كلا تكلم نين كان نين الآن ما أنا هانا مية هدان هذا حتى وحى إيجام بقى جابة إيجام بقى صوم عنها أوكي نين كلو إيمانا أنجور صندونه ما نين كانوا كلو نقنا نسوق حمانا متقاني محل يجري ما حاجرتي لها تمر قعنت هذا كجرته تمر جيت صار ملو داري توابه بتابع على الأقل نين كان عيبيسا واتقانا شن عيبو ليه واتقانا وهجاجين كرتا لكن كان عصب إيمانا عيبيس متقاني طبعا مو يلا مثل باطن ويلا أنا متقاني مركا وحانيه لها قبله ولا عليه مسلمات كأ الرمانة كل هذي دعان عبرك هديقو قريجا بربورين وحيالها كأوحن وحواي قريجا إنه بربورة دبعة بدن إلى هذا دبعة أدحون إلى هذا ilmaha saana dhibaatada gaaraysa ugu badi adigina ku gaari qaar waa gaari ninkii waa gaaraysa qofaysan gaarayna ma laha furitaanka waa xalaal waaye waana xal waaye laakiin xalka ugu dambeeyo waa shaytaanka waxa kaliya xalaash uu ku farxa taas waaye rasuulka xadiis saxiix uu sheegay galabtii markii la gaaray shaytaanka inuu badda korkeeda ashi saarto shayaatiintii yariiska imaana report siinayeen marka mid walba wuxuu leeyahay waxaan soo sameeykan mid wuxuu leeyahay ninka san ugu waday caasiyan ka soo dhigay waalidkiisu ku soo caasi wuxuu lam tafcal shay'an mid kala imaanay waa ku waday ila zina ay galaan zina xaraam waa lam tafcal shay'an saa waa ku waday ila ninka kale uu dilo lam tafcal shay'an mid kala imaanay waa ku waday ila kafaro marna naagta uu tagay dhigtan wax uu sheegay dhiigeedan kicii mar asan u imaaday waxaan dhahay naagta wax maxay kugu qeynaysaa iyada umada ninkan adoon ma u tahay san u waday waa kala qarxay waa kala tageen bas shaytaanki inuu istaago wuxuu leeyahay anta hagu siina marka shaqo fiican soo qabato leeyahay في حرام تدمت كموسن فرحين تي حلاش يا ذوك فرحة مركا كنت استاذ مركا فوريتانكا إنه أرنا دحنية هي لأنه جوري أنا بربراء لبقى فوضى جوري الله هاي جوري الله كده بس جبر الشالي جبر مروه جوري له هي وعرور له هون له مركي له بربر فوريتانكا محور عاي بناكي سو استاذ نينكي وحوها نين أو لقدم بجوري جيس ديار أو إيمان جري وها أو أنت ديس ديار وبرمال دم بوسون نقنا وحصون نقدان nin single oo soo noqdaan caruurtii masaakiinta caruur hooyi aaba leh ahaayeen xanaanka iyo xoog la sugu kabaayay waxay soo noqdeen naaqis ay soo noqdeen meel walba marka naqsiga sida uu soo gala waxa loo baahan yahay marka gabdhaha inay aqli yeeshaan hal waxa idin sheega oo idin muhiim ah gabadha ninkeeda way haysan kartaa waxay ka dhigi kartaa faraanti farteeda ku jirtay kali faraantiga ma taqaan waqti yar aan gelinaa waqti yar aan bixinaa soo maaha ninka saas waa ka dhigan kartaa waxa ay dhigi kartaa waxa waaye xoog ma ahan qaylana ma ahan murana ma ahan qalbigiga idin kala hadla walaalkiina ah wallahi ninka ay hadaarat ina wax kasta ka qaadatay wax kasta uu ku sameeyo madax uu ku saaro baari iyo raaliye noqon xayawaanka qofka ihsaanka u sameeyo wuu yaqaan xayawaanka dameerka waa taqaanaan hadii qofka garaaca qofka lagu kala yaqaan nin ibn aadane oo markaas hadal wanaagsan la dhahayo oo xabiibi la dhahayo wuxuu baahan yahay la siinay oo la murmeeyay billaah alik inta iska badan muxuu rabaa adin wax kasta ayuu ku dhahaa